تجا يقانو عيالك مركي أي إسلامها أما فاميلك مركي المود هروايا يودا صوفر قشيد ما ولا يقطع حتى لك المود أغلى فرق عليه سملا أدوك غير تتساسوا حتى كو عيات أدوك غير كيسة والقوي مانع جمعها لو قبلها ما أدون اللي سكت دينه معها صوته أدوك هو استعمل هذا واحد مقدشو كدعاية واشنطن واحد كدعاية أما لندن يسامعين كويا oo isaameeyo adduunka hadeertaan isku socodka iyo tiknoolajiyada iyo travelka iyo waxa dhan sahlan marka saas daraadeed leesma dhaafayo annaga marka waxaan rabnaa maadaama aqoonyahana u badan tihiin xoogiina in aad fiirisaan ama aad discussion ka yeelataan ama aad doodo laga furo maxay caqabada annaga hortaagan inaan nation noqono inaan qaran noqono maxaan hortaagan hadda waxa soo socota san gurida dhexdeed Soomaaliya inta hortanahay 30 sano dawladda ay 30 sano dawlad معنى لما هي سنة أنا ما بجت عليه كلام بس definition كدولة مركي لهذا ولا دولة ما جرته صدقني صدق مركي عمري جاي ناس سياسات دولة نمو وكلا بريها وصدقني صدق محا مركي أنجا صدق كاسانو on محا عقبات هرتاج الحيه وحنا سد عقبات إن discussion كينا أما دولة هنا إن أقدر ستان أو أتفكس كسرتان عن ربا عقبات كوادو هواي وأنا صدق أنك أساس طبعا كانوا وقبيلك هي الدينك هي ودنك صدق أسواي صدق هذا باستقالة هي نوقلين ما دام صدق الاستقالة نوقلين وح أن كعلة أنها هو صدق ناس صدق أسمك يقلب نوقلين واستقالة نوفهني وحنا قصوا بحيث النوع كلها أنا نقول أنا قدام الدون كان هالسكوا قبل يدقني هالسكوا هدي في هذا فهم كقلدن diinta markii la fiiriyo hadeertaan dhibaatada naga haysataa waxa ugu badan oo hadda ninka ku dilaya oo ku dhahaaya hadana waxaan ku dilaa ilaahay dartiis hadaa limatana waxa tahay shahiid jannada galaysa aniga adiga hadaa isdilnaa waa asla wada shahiidina hadiiskan wuxuu ahay hadii muslim dilo macnaheedu ama muslimka dhiigiisa waa ka xaraan naftiisa waa ka xaraan hantidiisana waa ka xaraan dii waxa fahamkeeda la keenay leeyahay hadaan ku dilo أنا جنة جنا أريد أن ترى جنة جري. مركب وفهم قلدنا ودين حكوا كيم مركب ماشوا كيم يعني شجاع ربع. وهو كيم لا بقى إنه كيم من سياسة لسانه كيم من السد عد أو فهم قلدنا كيم فهم في قلدنا كيم محاوي دين تنو حلال هاي واحد يسبدلي أو علماء الواحد عن أصل إيه واحد يسبدله أو متغيرة أو أسلوب بدلها ظروفها وقتها taariikhda nolosha dadka bay'adu isla bedelaa marka labadaas inay kala saaran yihiin waa fundamental si kala loo dhigo waxna waa waxyigii Ilaahay nagu soo dejiyay oo nabiga nagu soo dejiyay oo risaalada uu soo gaarsiiyay Alayhi Salaatu Wasalaam marka islaamka marka sidiisa marka siyaasadda xog ka hadlayo wuxuu ka hadlaa mabaadi iyo qiyam oo ka hadlaa مثلا wuxuu ka hadlaa xorriyadda cadaaladda sinaanta dadka inay sineeyeen wuxuu ka hadlaa in maalka uu yahay hanti dadweyne ay tahay hanti aan la qaadan karin in qofka xilka loo dhiibo quwii amaana loogu dhiibo oo la fiiriyo kartidiisa iyo amaanidiisa la fiiriyo in maaragtay dadka aan la dulminin oo dulanka uu xaraan yahay mabaadi'u leeyahay islaamka dadka muslimiinta marka waxa loo dhaafaa modelka ay mabaadi'daas ku fulinayaan ijtihaadkooda nololeeda loo daayaa rasuul nabiga hatta markuu dhimanay Alayhi Salaatu Wasalaam saxaabada saas madax hebel ay noqdo ma dhihin waa asagoo meydkiisa yahay 3 maalin is haystay yaa madax noqonay oo la isku haystay oo muhaajiriin ansaar la isku haystay ayaga dhexdooda iska xaliyay madaxtinimada ku keen awookan ayaga doortay ayaga is xaliyay marka hadduu ku dhaw marka dad waxay marka dhahaya xalkiiba anaga ahayn adiga xalka ma haysid xalka wuxuu u baahan yahay in laga wada doodo oo doodna dhaxmarto oo aragtida aad keento waa qaabka loo fulinayo mabaadida islaamka sida loo fulinayo waa arin farsamo waa arin process ama ijraa'ad waa arin adduunyo waa arin u baahan in maaragtay laga wada hadlo oo fulinteeda wax la isaga ogaaday u baahan tahay meeshaas marka qalad ka yimid qaladkaasna wuxuu yahay in dad ayaga nooca ay rabaan oo shareecada waliba ayagoo ku qaldaay historical context waxa la yiraahdo dhacdooyinkii taariikhda islaamka soo maray yay waxay ku leeyihiin dhacdooyinkaana diintii ah mana aha
dhacdooyin kaana ma aha marka diintii ma aha diinta waa mabaadida iyo qiyamka marka fahamkaas qaldan wuxuu keenay inaad dhibaato laga qabsato arrintii ayada ahayd midda labaad waxaa waaye oo dhibaatada nagu haysa waa oo xagga diintana ka timid loolan siyaasadeed oo geopolitics oo adduunka la haysta dad inta la dhexgeliya muslimiin ah yaa si qalad loo isticmaalay tusaale maxaa ah waa dagaalkii u dhexeeyay qaboobaa ee Soofiyeedka u dhexeeyay Mareykanka saa ogtiin dagaalka Afghanistan oo jihaadka Afghanistan la dhihi jiray 12 sano 20 sano ku dhawaad socday dad badan oo muslimiin ah ka qayb galay dawladda iska kaashaday midna ay bixiso tababarka dhulkeeda lagu tababarto Pakistan ay ahayd midna dhaqaalaha ay bixiso fundingka midna hubka ay keento Mareykanka hubka uu keenayay Sacuudiga wuxuu bixinayay fundingka saddexdaas waxay ku heshiiyeen marka in Soofiyeedka nidaamkii shuuciga ahay loo siibo jiridada loo bixiyo dhalinyarada marka waa la isticmaalay dagaalkii la geliyay maadaama ay niyad fiican ay lahaayeen oo dad jihaad u socday ahaayeen waa lagu guray meesha facilitation waa loo sameeyay wax yaalo waayo waa akhri kartaan dad mutacallimiin ah taa baaritaan sameeysan in wasiirka defensiga ahaan jiray Mareykanka Robert Gates la yiraahdo yaa mas'uul ka ahay malafka Amerika dadka xigmatiyaan iyo dadka madaxda u ahaa markaas Burhaandiin Rabbani iyo Ahmed Shah Mas'uudi wixii mujaahidiinta hogaamin jiray Afghanistan White House-ka Reagan ku qaabili jiray dad la qaabilo oo la og yahay oo jihaadkooda laga warqabo ah oo hub kala la siiyo si Soofiyeedka loogu dumiyo dhalinyaradaas marka meel kasta ka tageen annaga ninka shabaabka asaasay Ibrahim Xaaji Aadan Afgaan Mareykanku ka tagay Afghanistan ku jihaadaya dagaal ugu jiray markaasaa ka bacdi Soomaaliya imaan doona waa taariikh ina ogaano loo baahan yahay marka maxaa dhacay mashruuci markuu fashilmay mashruuci markuu dhamaadaan rabaa oo Soofiyeedkii meesha laga saaray Mareykankii iyo Pakistan wada fadhiisay dawladii waxaa la yiri dadkan sayela kumanaan kun dhalinyaro ah tababaran mujaahidiin ah farta ka xiran wada dagaalka yaqaan hadii dawladoodii ku noqdaan dawladoodii afgambinayaan meesha dhibaata ka imaanaysa sayelina waxaa la hala kala tiyo no walba wadankiisa loo diido sharciyada iyo jinsiyadaha laga wada qaato adigana maxay sameeyeen waxay dhaasayaan noo galay Amerika Soomaa dawladihiisa noo galay Amerika uway marka Amerika waa in anaga bariga dhexe iyo dunida islaamka aan ka bixino oo dagaal aan ku qaadnaa dagaalka marka ugu dhaxeeyo marka al-Qaacida Iran Amerika halkaas oo asaaskiisii ka yimid Ibrahim marka la soo diraayo inuu xarakadan iyo jihaadka Soomaaliya ka sameeyaan loo soo diray waxaan godanay arkaysaan iyo dhalinyarada kale dhanbodan aadam ceeyo waxaasna asaab talaal inayna talaal marka waa dagaal dad victim u ah geopolitics adduunka la isku haysto waayo waa sida hadda Iran iyo Shiicada iyo Sunnada iyo Mareykanka la isku haysto waa hadeertan u jeediyay kolonol sida hadda ugu jeediyay waayo oo ninka hadda maadhow la dilaayay wuxuu ahaa ninka Iran uga mas'uula inuu Shiicada ku talaalo deegaanada ay dadka Sunnada degan yihiin si awoodda Shiicada ama Iran loo xoojiyo waa ogtiin Lebanon Syria Iraq Yemen afar dawladood iyo waxay kulaalayaan wadanka la yiraahdo Oman inta marka dhalinyaradan waxaan rabaa Bahrain la yiraahdo dhalinyaradan marka arkaysid waa dhalinyaro victim u ah ama dhibanayaal u ah dagaal geopolitics ah oo adduunka u dhaxeeya hal mar aan ku soo yaaciyay ayagana waxay dhahaan waxaan aragnaa waa maadaama reerooda loo diiday inay deegaanadooda ku noqdaan dalalkoodii loo diiday inay faamiladoodii ku noqdaan ayagana waxay go'aan ku gaareen waxay arkaan inay qarxiyaan ayagana hore u dhintaan maadaama nolol ee adduunka aysan ka haysanin marka waa dad saas waay dadka annaga haddana dhex degan oo arkaysaan oo caqabada nagu ah midda labaad ee caqabada taas waa tii dhinaca fahamka oo diinta xaggeeda naga haysto waaye wayna nala socon doontaa haddaanan daawo loo helin oo si dhaba looga wada hadal oo dadku aysan ka wada doodin caqabadahan haysta saasay u oolayaan wiilka dhahaaya haddaa dhimatane jannaa galaysa annaga waa kugu shahiidaa jannaan kula gelaya waa noo joogayaan haddaanan xal loo helin oo xal loo helin qaybta labaad waxaa waaye waa qabyaaladda annaga hadda waxaan rabnaa inaan qabaa'il ahaan adduunkana ma ogolo qabiilka oo qabiil lama aha karo sababto qabiil nation state ma noqon karo qabiil qaran ma noqon karo marka see marka aan rabnaa inaan u noqono qaran caqabadana hortaagan marka maxaa waaye qabiilo diraan nahay dawladoodii dumiyey inay dib u dhistaan rabaa marka halka wuxuu meeshaas laga rabo waxaa waaye in aanan noqonin dad caqabad ku ah dhismaha dawladnimadooda see u noqonaynin
waxa markii hore dawladdii ay isaga duminaa meesha ka saarayna oo ah inuu sharciga sareeyo dawladdii maxaa dumiyay dawladdii waxaa dumiyay sharcigii iyo qofkii asdhex galay qofka madaxda ee dawladda ama madaxweynaha noqdo ama ra'iisul wasaaraha noqdo ama baarlamaan qof ku jira ha noqdo ama qof maaragtay taliyo ciidan ha noqdo qof kasta sharciga gacantiisa ku qaadanay asaga wuxuu ahaa sharcigu asaga kama baxsanayn sharciga adiga asaga looma sinayn asaga ahaa sharciga waxa asaga oo dhaw maadaama government officer uu yahay levelku raba ahaado asaga dawladdii ahaa waxa meeshaas ka baxay marka sharciga inuu sareeyo waxa ka baxay xorriyaddii waxa ka baxday sareyntii dastuurkii ka baxay dadkii marka maxay noqdeen nimankaana ugu daysanayna meeshii ka yimaadeen 50 sano ka hor aan joognaa annaga hadda oo ah wilaayado ama status kala go'an oo u baahan inay muwaafaqo helaan si dawladda u dhistaan muwaafaqada marka maxay ku imaanaysaa waxay ku imaanaysaa saa annaga dhahaynay is-ogol iyo taladoo la isla guddoomay ku imaanaysaa marka qabiilka caqabada uu nagu yahay waa laga gudbi karaa haddii si cilmiyo aragti iyo aqoon ah aan uga hadalno mid saddexaadna maxaa waaye waa waddanka oon wada leenahay annaga oo ama arrinta la yidhaahdo waddaniyadda hadda loo bixiyey waddaniyadda arrin fiican waaye waxa aan sheegaya dhan wax xun ma aha qabiilkana waa isku quraanka waa sheegay isku aqoonsano waddanka waa wada leenahay diinta waa islaamkeennii laakiin markii faham qaldan laga bixiyo oo dhinac qaldan loo leexiyo oo waddaniyadda ay iska noqoto halku dhigiyo oo ah qofka anaa wadaniya waa kaa wadanisanahay waxaan kaaga wadanisanahay intaan qofka aflagaadeeyo ama intaan aniga aan idhaahdo oo wadaniyaddii aysan aqoontada ah maandhood waxaan dhageystay shalay maahan mise xalay hal saacay bal interview laga qaaday qalbi dhagax runtii calool xanuunu lahaa sida loo qabtay waxaasoo dhan marka iyo sida loo xareeyey iyo sida Ethiopia gacanteeda loo geliyay marka aniga waxa igu daran wuxuu yiri maalin maalmaha kamid ay ii imaadeen nimankii hayay waa dhageysteen intiina badan oo marayna markaas waxay ugu yiraahdeen madaxweynaha rabo inuu ku arko shirkii African Union ku yimid Ethiopia la jooga madaxweynaha rabo inuu ku arko ama adiga aan ku geeyno marka waayaha iriyo dhahay madaxweynihii liimana keenin maalin dambe weydiiyay ninkii waxaan ku iriyo dhahay war aaway madaxweynihii aan is arkaynay markii wuxuu ugu yiri dhahay iska dhaaf kaas ku macno la maahane qalbi ciyaal waayo dhahay macnii wuxuu markii sheegay asaga ninkii soo dhiibo Ethiopia soo gacan galiyay iyo sida Ethiopiaanka asaga ay u arkaan sidoo yahay taasaan ka murugoodo dhahay marka wadaniyada halku dhig maaha wadaniyada shicaar maaha ani wadaniya ma aha arintu wadanigu waa ficil wadanigu waa principle waa mabaadi wadanigu waa qadiyad waa wadanigu waa dala u taagan tahay maaha wadaniyada halku dhig kaliya ma noqon karto marka ani waxaan isleeyahay hadii marka kaasna aan saxno oo arinka wadaniyada ah oo sida qaladka aan u fasirayno waxaan u baahanahay ayadana waxaan ka imaan doonaa in aan fahamkaas qaldan meesha ka saarno haddaan markii qabiilka sida xun aan ugu dhaqmayno ama sida xun loo fahamsan yahay wadaniyada sida qaladka loo fahamsan yahay iyo diinta sida qaladka looga turjumayo saddexdaas caqabadood aan naga hor taagan inaan ummadaha la tartamaysa aan noqono saddexdaas marka dhiraadhiris u baahan yihiin uma baahna kaliya halku dhigi uma baahna ama waxa la yiraahdaa shicaaraad ama waxaan ay dhahaan maaragtay slogans uma baahna waxay u baahan tahay deep thinking si xeel dheer in looga fikiro si xeel dheer in loo dhiraadhiriyo ummadaha ka soo baxsaday dhibaatooyinka noocan ah awaadif iyo emotion iyo waxaas kama keenin andaaso anaga hadda sababtaas keentay waxa ugu muhiimsan ma taqaanin oo ummad dib looga saari karo waa siyaasadda hadday siyaasadda halaysan tahay dhaqaale iyo horumar iyo bulsho iyo xasilooni iyo dadnimo ma heli kartid midna sababtoo hoggaanka halaysan siyaasadda yaa qariban antaasana keenaysa moogtahay waxaan dhahaa markay markabada ama badda markay doonta markay badweynta dhex marayso hadday dabayl adag ku timaado ma isleedihiin inka tanka naaquudaha keliya loo dhaafayo qof walba wuxuu isku dayaa inuu dhinaciisa ka qabto yiraahdo inta ka qabo inta ka badbaadi inta ka celi inta qof walba wuxuu isleeyahay sayf yar noqo annaga hadda marka maadaama hoggaankii uu qaldan yahay oo siyaasadii ay sal ku haynin qof walba Soomaali wuxuu isku dayaa inuu siyaasadii wax ka hagaajiyo waa arrin fiican laakiin maxaa la rabaa inaan noqoto qof ay muwaadinimo wado aysan qabiil wadin dadka waxa ugu daran citizen ku xaliya saddex loo qaybiyaa mid dantiisa raacda asaga
وسلفش على هذا سيتيسن noloshiisu iska raacdaa bariiskiisa imiisoo korsadaa nolol maalmeedkiisu soo dhacsadaa waxa socdana danka ma laha midna waa tribal oo waa tribalista waaye qabiilkiisu aaminsan yahay dal iyo qaran ma aaminsano midka saddexaadna waa citizen waa muwaadin aaminsan waajibaad iyo xuquuq iyo mas'uuliyad saaran dalka inay jirto aaminsan marka waxaan isleenahay haddaan saas noqonno muwaadiniinta aan noqonno markaas waa guulaysan karnaa marka waa mahadsantihiin hadalkii halkaasaan ku soo gaabinayaa asalaamu calaykum ومعتني سيدة وفيعان ورفضان المدخينه ينوغو في السراي وحي تهي وادن لماذا إيوه ودن لماذا عاوة وهمينكي كوالالامبور يحسبي قوة الشير مالا الله في السن مايو مالا بواوك حيا الشعب كيغا هدلايا iyaga hadlaya madaxweynuhu waa ku maadsan yahay sida quruxda badan oo shacabkiisa reer Malaysia uu qanciyay ugu horay waqtigiisa uu noogu soo horay taariikh farabadan nala soo kulmo ardayda iyo taaliyada Soomaaliyeed wadankan aad loogu soo dhaweynaya madaxweyne soo dhaw baan ku leenahay mar walba dalkii oo fadhiisana waxaan ku soo dhaweynayaa Dr. Maxamed Siyaasi oo ah isku soo dibaridaha barnaamijkan quruxda badan ahna gudoomiyaha ardayda Soomaaliyeed ee wadanka Malaysia ku soo dhaw maxay bismillaahir rahmaanir rahiim dhamaan waa mahadsantiin dhamaantiin maqaam walbaad ku fadhisaan waxaan la jirnaa wadajir bay laba gacmood wax ku qaban karaane aan isweeshano walaalayaal aan wada jirno walaalayaal assalaamu calaykum waraxmatullaahi wanaagii horumar raba wanaagii horumar raba wanaagii horumar raba wanaagii horumar raba isana wacadku mariyo wallahi wanaagii horumar raba wanaagii horumar raba wanaagii horumar raba wanaagii horumar raba maantana waa lagu farxiyo iftiin baa walaalac yidhi isbiga wacaneen heliyo bulshadu weelkay heleen la socaynu wada jir yahay la socaynu wada jir yahay la socaynu wada jir yahay maantana waa lagu farxiyo iftiin baa walaalac yidhi biga wacaneen hel hoggaan la wakiilan karo warkiisu nool wacadka jabinay in hadhow la socaynu wada jir yahay la socaynu wada jir yahay hoggaan la wakiilan karo هذا هو ما